xaaladda magaalada Boorama ayaa weli kacsan dhimashada dadka rayidka ah ayaa lagu soo waramayaa inay kor u dhaaftay 15 ruux halka dhaawac uu kontumeeya dhaafay mudaharaadyada iyo rabshadaha ay shacabku dhigayaan ayaana weli sii socda madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo ka hadlay qalaalaasaha iyo qabashada buugga xeer ciise oo aan cadayn muxuu hadalka madaxweyne Ciro xal ugu noqon waayay rabshadaha ka socda Boorama ee ay dhigayaan shacabku waa maxay sababtu muxuu yahay waxa ay soo ogaayeen ugaaska guud ee beelaha Samaroon iyo madaxweyne Cabdiraxmaan ee uu ugaasku dibadda keenay muxuu yahay waxa laga filan karo shirka sabtida ay u ballansan yihiin madaxda dhaqanka gobolka Awdal ama qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu ku dul istaagi doonaa warbixinteena ku soo dhawaada magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal habeenkii labaad waxa uu bilowday habeen ka mid ah kuwa ugu adag taariikhda taliya intii dhibada loo taagay Soomaaliland waxaana caawa magaalada uu gobolka ugu dhacay iyadoo ay yeelaan meydka in ka badan 15 ruux oo ku baxay gacanta ciidamada Soomaaliland kuwaasi oo dadka shacabka ay mudaharaadka dhigay u adeegsaday xabad nool halka dadka dhaawaca ay kor u dhaafeen 50 qof arrintaasi ayaa si weyn waxa uga carooday haldoorka reer Awdal iyo xildhibaanada labada aqal ee wakiilada iyo guurtida ku matala waase xukuumadda madaxweyne Ciro ku eedeeyay inuu ku kacay wixii uu markii mucaaradka ahaa diidanaa iyagoo sidoo kale ugu baaqay dawladda inay ciidamada militariga ah ee maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaalada lagu daadgureeyay guud ahaanba laga saaro si loo dejiyo xaaladda dadweynaha diidan go'aankii Khamiista ay xukuumaddu ku fasaxday qabashada xafladda buugga xeer ciise magaalada Saylac madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo xukuumaddiisu ay horeba laba go'aan oo ahaa iyo may ahba uga soo wada baxeen isla markaana go'aankii ugu dambeeyay oo sababay rabshadaha ka kacay magaalada Boorama ee sababay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxa madaxweyne Cabdiraxmaan oo ka jawaabaya waxa ka dhacay magaalada Boorama ee maamulkiisu uu sababtiisa lahaa sidoo kalena ka jawaabaya soo jeedinta haldoorka iyo waxgaradka reer Awdal ay u soo jeediyeen ee ahaa in ciidamada militariga laga saaro ayaa 24 saacadood kadib warbaahinta ka soo muuqday waa madaxweyne Ciro isagoo shirkiisa jaraa'id ku bilaabay tacsida eheladii dadkooda ku waayay mudaharaadyada waxa uu sidoo kale sheegay in dawladdiisu ay baari doonto sida ay wax u dhaceen ee keenay khasaaraha naf iyo maalba leh ee ka dhacay magaalada Boorama 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxaana uu madaxweyne dhanka kale ka hadlay salka khilaafka dhibaatada sababay kaasi oo ah muranka dhanka dhulka ee degmada Saylac ee u dhaxeeya beelaha Ciisaha iyo Gadabuusi isagoo madaxweyne Ciro ay hadaladiisa u badnaayeen kuwa ay ku jirta xeelad diblomaasiyadeed oo dhinacyada ishaya iyo bulshada kalaba dhexdooda muran ku abuuray maadaama fahankoodu ay u baahan yihiin in lagu sii daadago hadalka madaxweyne Ciro ay ka mid ahaayeen qodobada aan sheegnay iyo kuwa kale oo la filayay inuu daawo u noqdo mudaharaadyada ayaa u muuqda mid aan wax saameyn ah ku yeelan reer Awdal balse dabka uu ku sii shiday maadaama ay shacabku madaxweynaha ka sugayeen inuu ku dhawaaqo inuu hakiyo ama joojiyo qabashada loo asteeyay bartamaha bishani buugaasi waxaana weli ka socda magaalada Boorama mudaharaadyadii xalay ka bilowday ee khasaaraha dhaliyay inkastoo ciidamadii qaranka ee hore magaalada loo geeyay caawa dib looga qaaday gudaha magaalada Boorama isla markaana kaliya lagu reebay waa magaalada gudaheega ciidamada booliiska ay sida caadiga u joogay guud ahaanba magaaladaasi inkastoo oo tirada ciidamadaasi aad loo kordhiyay dadweynaha reer Awdal ayaana u arka inaanay weli muuqan wax xal ah oo uu keenay hadalkii madaxweyne Ciro jeediyay maadaama aanu si cad u sheegin wax joojin ah ama dib u dhigis oo ku saabsan waxa ay markii horeba diidanayeen ee dadkooda u keenay khasaaraha tirada badan ee naf iyo maalba isugu jira geesta kale ugaaska guud ee beelaha Gadabuusi ugaas Cabdirashiid ugaas Wable oo Boorama ka hadlay caawa xilli dambe ayaa mar kale ku celiyay inaanay isaga iyo dadkiisu midnaba ka tanaasuli doonin taaka ka mid ah dhulkooda waxaanu sidoo kale shaaca ka qaaday xog uu sheegay inay isu ogaayeen madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsiyadeynayaa dhammaan dhalinyaradii naga dhimatay ilaahay samir iyo iimaan Allah inaga wada siiyo waalidiintoodii ilaahay samir ha siiyo inagana samir iyo iimaan dhammaanteen Allah inaga wada siiyo dhalinyaradii ku dhaawacantay gobolada Awdal iyo Salal dhammaantood baa ilaahay ha u boogadhayo ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan sidoo kale tilmaamayaa in dhammaanba ciidamada militarigu si dhaqso ah uga baxaan magaalada Boorama cid kastoo dhacdada ka dhacday gobolada Salal iyo Awdal waa meel kastoo igaadhaba waan kula xisaabtami doonaa sidii aan isku ogeyn madaxweyne umadaydana aan u sheegay taaka dhulkayga kamida kama tanaasulayo waxaan adiga ka sugayaa in go'aanka sida ugu dhaqso badan aad ka noqoto
hadalkaasi ugaasku uu sheegay inay isku ogaayeen madaxweynaha Somaliland ayaa u muuqda mid ay madaxtooyadu ka baxday maadaama ay maanta xilli hore dhanka kala sheegeen madaxda dhaqanka gobolka Awdal in madaxweynaha iyaguna dhankooda ay isku ogaayeen in shir la iskaga yimaado labada dhinac si xal loogu helo khilaafka buugaasi. dhanka kale waxaa weli socda dadaalo kala duwan oo ay wadaan madaxda dawladda ee ka soo jeeda gobolka Awdal iyo madaxda dhaqanku kuwaasi oo dhanka xukuumadda madaxweyne Ciro ku cadaadinaya inay ku dhiirato ku dhawaaqista go'aan saddexaad oo xal u noqda xaaladda ka taagan magaalada Boorama ee khasaaraha dhalisay. waxaa iyaduna dhanka kale xusid mudan in madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal ay maalinta bariya u balansan yihiin shir ay doonayaan inay kaga soo saaraan go'aamo masiirka dadka ay u taliyaan khuseeya haddii la waayay go'aan ay ku kala badbaadayaan ciidamada iyo dadweynaha mudaharaadka dhigaya. waxaana bulshada reer Awdal ay si weyn ugu dhagtaagayaan waxa uu noqon doona natiijada shirka madaxdooda dhaqanku ay ku balansan yihiin. waxaa iyaduna jirta dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka socda gudaha iyo deegaanada kale beelaha reer Awdal gaar ahaan beelaha Gadabuursi ay degaan kuwaasi oo dadka shacabka dhinacooga ay isu hubeynayaan iyaga oo diidan go'aankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay dawladda Somaliland kaasi oo ay ku ogolaatay in buugga beesha xeer ciiso xafladiisa lagu qabto magaalada Saylac. shacabka reer Awdal ayaana ku doodaya in ujeedada bandhigga buuggaasi aanu ahayn mid xaflad kaliya khuseeya balse ay ku duugan yihiin ujeedooyin kale oo ka dhana sida ay qabaan deegaamadooda. Inta kale xogay iyo wararkii ugu dambeeyay ka imanaya magaalada Boorama ayaa sheegaya in maalinta bariya ay u balansan yihiin qaar ka mid ah uqaasha waxgaradka madax dhaqameedka iyo boqorada kale ee Somaliland kuwaasi oo ku wajahan dhinaca iyo gobolka Awdal madaxda dhaqanka ee gobolkaasi ay uga hadlaan dejinta xaaladda hadda jirta.